fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe. Share like-na ha ka iloobi. magaalooyinka ugu faca weyn dunidan aan ku noolnahay. Halkani waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 10 magaalo ee ugu faca weyn dunidan aan ku noolnahay, welina dhisan loona dalxiis tago. Magaalooyinkan waxay dhisan yihiin muddo qarniyo ah, ilaa haddana waa la degan yahay. Magaalada koowaad waa magaalo la yiraahdo Qudus ee ku taala dalka Falastiin. Magaaladani waxaa la dhisay 2800 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Magaaladani waxay ka mid tahay magaalooyinka barakeysan, waxaana ku yaala masjidka Al-Aqsa oo taariikh fog ku leh dadka Muslimka dunida ku dhex nool. Taariikhdu waxa ay sheegaysaa in magaaladani ay ka dhaceen ilaa 52 duulaan oo lagu qaaday inta ay dhisneyd, 2 marna dagaal ay ku burburtay. Magaalada labaad waa magaalo la yiraahdo Tiiri, waxay ku taalaa dalka Lubnaan. Magaaladani waxaa la aaminsan yahay in la dhisay 2750 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Isla xilligaasna ayaa la degay. Magaalada saddexaad waa magaalo lagu magacaabo Arbil oo ku taala dalka Ciraaq. Magaalada Arbil oo waqooyiga Ciraaq ku taala waxaa la dhisay 2300 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Magaaladani dadka juqraafiga ku takhasusay waxay sheegeen magaalo cimiladeedu wanaagsan tahay, waxaana ay heerka badda ka sareysaa 26 mitir. Magaalada afraad waa magaalo lagu magacaabo Kirkuk oo ku taala waqooyiga Ciraaq. Magaaladani oo qiyaastii 150 mayl dalka waqooyi ka jirta caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad, waxaa la dhisay oo la degay 2200 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Magaalada shanaad waa magaalo lagu magacaabo Balkh, waxay ku taalaa Afghanistan, waxaana la aasaasay 1500 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Gariigii hore magaaladani waxay ugu yeeri jireen Bagra. Haddana waxay ka mid tahay magaalooyinka loo dalxiis tago, waxaana ku yaala warshado yaryar oo suufka ama cudbiga soo saara. Magaalada lixaad dunida ugu faca weyn waa magaalada Athens ee dalka Giriiga. Magaaladani waxaa lagu tilmaamaa halka ay ka bilaabatay ilbaxnimada reer galbeedka iyo dimuqraadiyadda. Waxaa la aasaasay 1400 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Magaalada toddobaad waa magaalada Laranka oo ku taala jasiiradda Cyprus. Magaaladani oo magaalo xeebeeda waxaa la degay 1400 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waa magaalo geedo qurux badan ay ku yaalaan loona dalxiis tago. Magaalada sideedaad waa magaalada Thebes, waxay ku taalaa dalka Giriiga. Magaaladanu waxaa la degay 1400 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waxaa la sheegay inay xudun u ahayd dowladda Bershiya. Duulaankii Bershiya ku qaaday dalka Giriiga 480 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Magaalada sagaalaad waa magaalada la yiraahdo Cadiz oo ku taala dalka Spain. Magaaladani waxaa la degay 1100 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Magaaladani oo ku taala xeebta Atlantikada laga soo bilaabo qarnigii 18aad, waxay saldhig u ahayd ciidamada badda dalka Spain. Magaalada tobanaad uguna weyn waa magaalada Varanasi, waxay ku taalaa dalka Hindiya, waxaana la degay 1000 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa magaalooyinka ugu faca weynaa dunidan aan ku noolnahay. Barnaamijkan waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdi Yuusuf Cabdi.